si loo dhimo dadka 15 sanaba mar waxaa la soo daayaa malaayiin bahalo ah si ay dadka u dhimaan. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa xagga samada sare oo ay ka soo daadanayaan bahalo, waxayna dilayaan malaayiin dad ah, waxay burburiyeen magaalooyinkii, waxay go'aamiyeen dagaal dhab ah bahaladan. Aakhirkiina waxaa la dabargooyay bahaladii oo dhan. Waxaa la dhisay qalab ilaalineed, albaabo waaweyn oo loogu talagalay in dadka lagu ilaaliyo. Intaa kadib waxaa ka soo wareegatay 15 sano. Dunidu waxay ka soo kabsatay burburkii iyo baabi'ii. Mid ka mid ah kuwa nasiibka u yeeshay inay noolaadaan waxaa ka mid ah Laura. Waxay ka shaqaysaa dugsiga sare dhexe ee ku yaala magaaladeeda. Waxay leedahay asxaab badan iyadoo ma jeclo taariikhii hore oo ay ka xanaaqdaa. Sababtani waa xanaaq ay u qabto ninkeedii hore Dave. Isagu lama joogin Laura intii lagu jiray musiibooyinkii hore u dhacay iyadoo uur leh. Waxay ahayd inay kaligeed noolaato. Dave iyo Laura waxay leeyihiin wiil 15 jir ah oo lagu magacaabo Taylor. Wuxuu maalintii oo dhan waqtigiisa ku lumiyaa Spatbag isaga iyo saaxiibtiis Midi. Waqtigiisa dhamay wuxuu ciyaaraa video gameska waana xidhiidhka adag ee adkeynaya in hooyadii iyo aabihii ku wada noolaadaan hal guri iyagoon isqabin. Dhanka kale xaaladdu way sii xumaanaysaa oo cirku waa uu sii midoobaanayaa. Tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha sheegaya inay musiibooyinku soo dhawaadeen. Intaa waxaa dheer dhawaaq iyo diryaan magaalada dhan saameeyey. Askarta ilaaladana waxay sameynayaan baaritaamo adag. Wararku waxay sheegayaan in dhibaatooyin soo falsaareen magaalada oo dhan. Dabargoynta tirada kalluunka ayaa meel kasta ka bilaabmatay. Kuwanina waa calaamadihii hore u dhici jiray marka ay musiibooyinku soo dhow yihiin. Waa calaamado kale oo cabsi leh, wax waliba way soo celiyeen sidii ahayd 15 sano ka hor. Dave wuxuu wacayaa saaxiibkiisii hore ee Ted. Wuxuu ogaa in maalinta musiibadu bilaaban doonto ay tahay berri. Dave wuxuu go'aansanayaa inuu qoyskiisa u kaxeeyo si degdeg ah si ay uga badbaadaan musiibadan. Dhanka kale bahalkii ugu horreeyay wuxuu ka soo muuqanayaa xarunta keedinta korontada isagoo raadinaya bini'aadam uu dhibaateeyo. Waqtigan Laura waxay wacday Dave. Waxay sidoo kale aragtay wararka iyo waxay sheegayaan, waxayna hubtaa in qofka kaliya ee badbaadin kara uu yahay Dave. Dhanka kale Taylor waxaa loo soo diray qoraal isagoo aamusnaan ku akhrinaya waxaana ka baxaya albaabka. Laura waxay u muuqataa inay argagaxsan tahay. Dave marka uu dhamaystay mobilka waxa uu raadinayaa wiilkiisa Taylor laakiin ma joogo oo waa hore ayuu baxay. Laura waxa uu yimid nin lagu magacaabo Milton wuxuu u sheegayaa inay tahay si degdeg ah inay aga baxaan halkan. Laura ayaa ka welwelsan wiilkeeda laakiin Milton wuxuu ka baarayaa location-ka. Si kastaba ha ahaatee Taylor wuxuu la joogaa saaxiibadiis Midi waxay u muuqataa inay welwelsan tahay maadaama uu waalidkeed ka tegay. Waxayna weydiisatay Taylor inuusan cidlayn doonin. Taylor wuxuu u ballan qaaday inuu weligii ka tegi doonin. Si lama filaan ah waxaa la maqlayaa dhawaaq shimbiro iyo xayn shimbiro ah oo hal dhinac u duulaya. Qof walibana aad buu u argagaxsan yahay oo dadku way isjiirayaan oo waxay rabaan inay isaga baxaan magaaladan. Dave wuxuu raadinayaa Taylor oo wuxuu galay saxmad weyn oo taraafika. Wuxuu isaga soo degay gaarigii maadaama ay wadada gawaadhi buuxiyeen. Waqtigan khubaradu waxay raadinayaan bahalo maadaama ay maqleen ruuxul dhawaaqyo yaab leh. Laakiin mid ka mid ah dadkii ayuu bahalku si fudud u dilay. Askartu waxay isku dayayaan inay caawiyaan laakiin bahalku wuxuu u muuqdaa inaysan rasaastu waxba ka tirayn. Taylor iyo Midi waxay taagan yihiin meeshan oo ma yaqaanaan meel ay tagaan. Laakiin Dave ayaa u yimid waxaana u sheegay in xaaladda magaaladu ay aad u qasan tahay. Waxa uu u yimid gaari ay saaran yihiin Laura iyo Milton. Wax ka yar hal saac ayaa ka dhiman in musiibadu si dhaba u bilaabmato. Magaalada waxaa ka jira jahwareer dhammaystiran. Dadkuna waxay isku dayayaan inay magaalada isaga baxaan. Saxmadda gaadiidka ayaa meel walba buux dhaafiyey. Ugu dambeyntii waxay aadayeen hoyga weyn ee badbaadada. Laakiin militariga ayaa xiray oo waxaa loo ogol yahay dumarka iyo carruurta oo keliya. Dave wuxuu ka codsaday Laura inay daryeesho wiilkooda isaga oo markaa u diray hoyga weyn ee badbaadada. Laakiin Taylor wuxuu dib ugu soo ordaa aabihii oo ma doonayo inuu ka tago. Laakiin Milton iyo Laura ayaa dib u soo celinaya weliba isagoo ku qaylaya isagu waa aabahey oo kama tegi doono. Waqtigan macluumaadka ayaa ka soo muuqanaya wargeysyada in hoygu si dhammaystiran u buuxsamay. Waxaa jira meelo kale oo xarun badbaada oo ay dadku u carari doonaan. Dave ayaa go'aamiyey inay aadaan meesha uu ku dhunto saaxiibkiis Ted. Milton wuxuu soo jeedinayaa inay ku dhuntaan dabaqa hoose ee ku hoos yaala iskuulka ay dhigto Laura. Inkastoo ay wadooyinku xidheen gawaari dadkoodii wataan iyo kuwa meesha looga tegayba. Waxay ka soo degeen gaariga. Waxaa bilaabmay dhulgariir. Qoraxdu way sii dhacaysaa. Bahaladuna waxay si dhib yar u soo marayaan duleelada xarunta keedisa korontada. Waxayna si buuxda u qabsadeen magaalada. Dave wuxuu soo jeediyey inay isaga baxaan magaalada. Aad bay u khatar badan tahay halkan. Wuxuu rabaa inuu familkiisa badbaadsado isagoo kaashanaya xirfadiisa. Laakiin Milton aad buu u xanaaqay. Kan waa baabuurkiisa uuna yaqaan sida loogu badbaadiyo dadka. Waxayna halkaa ku dagaalamayaan Dave. Intaa kadib waxaa si lama filaan ah ku qaatay haad ka mid ah bahalada. Laura waxay u dhawaaqaysaa saaxiibkeed Milton laakiin Dave ayaa gaariga ku celinaya. Waxay isku dayayaan inay isaga baxsadaan aqaabtan iyagoo dhex maraya kanaalka. Dave wuxuu xaqiijinayaa in familkiisu dhammaystiran yihiin oo wax waliba ay caadi yihiin. Wuxuu naftiisa iyo tan carruurtaba ku qancinayaa inay halkan isaga bixi doonaan. Gaariga waxaa kasii dhammaanaya batroolka. Dave wuxuu bilaabay inuu lugeeyo isagoo raadinaya gaari kale. Halkan waxaa yaala dhowr baabuur. Dave wuxuu bilaabayaa inuu tijaabiyo. Waxaa ka soo baxaya nin u muuqday inuu bahalada ka dhuumanayo. Waxaana Dave tusayaa bahal weyn kaasoo u eg sida qolfofta dibiga. Bahalka weyn ayaa ag maraya baabuurka isagoon dareemeyn. Waxa uuna bilaabay inuu calaliyo nin horaan ugu dhintay jidka. Dave ayaa si aamusan gaariga reefis ugu qaaday halkii ay
joogeen Lura iyo caruurtiisa. Hadda labada baabuur ayaa isku dhow, waxaana loo baahan yahay inay si aamusnaana u soo galaan, laakiin bahalkii ayaa dareemay shanqadha gaariga. Intaa kadib ninkii ayaa gaariga ka degaya isagoo ku seeraya milix, taasoo xanuujin doonta bahalka, waxaana halkan ugu dilayaa ninkii. taasi waxay fursad u noqon doontaa in Dave uu halkaas kala baxsado familkiisa. magaalada dhan waxaa u soo qulqulaya koox bahalla ah. Dave wuxuu sii marayaa waddo cidla ah iyagoo u socda meesha Ted uu ku dhunto ilaa ay soo gaaraan saqafka sare ee guriga. waxaa ku yaal kamarado, laakiin cidna kama jawaabi doonto codsigooda. albaabadu waa xiran yihiin. Tedna wuxuu arkaa saaxiibkii, laakiin uma jawaabi karo maadaama uu nin gadaashiisa taagan uu ku hayo bistoolad, isagoo u diidan inuu albaabka furo. laakiin si lama filaan ah waxaa kusoo yaacaya Dave iyo qoyskiisa bahalo ku teedsanaa buuraha. daqiiqada kadib waxaa furmaya albaabadii iyagoo si dirqiya uga soo badbaadaya bahalladii. hadda waxay u muuqdaan inay faraxsan yihiin oo wax walba ay caadi yihiin. waxayna fiirsanayaan sida caqliyadda leh ee ay bahalladu isugu dayayaan inay kadinka usoo jebiyaan. Grit oo lagu magacaabo militariga ayaa meydhi waxay weydiisay inay badbaadi doonaan iyo inay bahalladu gidaarada arkaan iyo inay dadka soo urin karayaan. intaa kadib Grit ayaa ku jawaabay, ha waan badbaadi doonaa, bahalladuna way awoodi karayaan inay gidaarada arkaan oo dadkuna soo uriyaan. waxaa kale oo uu sheegay inuu ku badbaaday webi uu quusay intii ay socdeen musiibooyinkii dhacay 15 sano ka hor, waxayna halka ay bahalladu ku laayeen 150 qof oo ay asxaab ahaayeen. sheeko dheer kadib Dave ayaa loo tilmaamayaa inuu midida qaato, waxa uuna ku qaadanayaa si aamusnaan ah. intaa kadib waxay dareemeen in bahal weyn uu soo dhowaanayo, iyagoo u muuqda kuwo argagaxsan. waxaa duleelka daaqada kasoo boodaya bahal weyn kaasoo saameyn u geystay xaaska Ted, taasoo lagu magacaabo Stella. Dave iyo Grit waxay isku dayayaan inay dhiigga Stella joojiyaan. bahalladuna waxay isku dayayaan inay albaabada soo jebiyaan maadaama ay wax walba oo banaanka joogay cagta soo mariyeen. ugu dambeyn waxaa yimid bahallada bahalkii ugu weynaa. Stella ayaa soo jeedinaysa go'aan ah inay banaanka u baxaan oo ay taqaano waddo biyo mareen oo ay si sahlan ku mari karayaan. Grit iyo David waxay go'aansadeen inay iyagu marka hore soo sahmiyaan waddadaas. Tedna wuxuu ku caawinayaa inuu siiyo hub ay isku difaaci karayaan. xoogaa kadib Stella waxay u muuqataa inuu xanuunku ku sii siyaadayo oo ay bukotay. Dave iyo Lura waa ay doodeen oo waxay ku eedeysay in ilaa iyo hadda ay ku jiraan go'doon uu isagu sababay. intaa kadib iyaga oo dhan waa isa soo raacayaan oo waxay arkayaan gaari meesha yaala. kadib markii ay fulaan gaariga waxaa soo yaacaya makhluuqii aadka u khatarta ahaa, halka Stella ay isku dayayso inay isdisho maadaama ay u adkaysan laadahay xanuunka aadka u daran ee uu bahalku gaarsiiyey, iyada oo jirkeedana uu muujinayo calaamadaha bahalnimada ah. waxa ayna u dhaqaaqaysaa halka ay bahalladu kasoo yaacayaan. Tedna wuxuu isku dayayaa inuu dejiyo isagoo u sheegaya inay caafimaadi doonto, laakiin iyadu ma dhegaysanayso. waxay u dhaqaaqaysaa halkii uu makhluuqii gabawaray adduunka ka imaanayo. hadda waxay u muuqdaan inay badbaadeen oo ay wax waliba caadi noqdeen. waxa ayna soo gaareen xarun kale oo badbaado, iyagoo isku dayaya inay faajignaadaan. waxa ayna hoos u soo dhaadhacayaan dhulka hoose ee badbaadada. waxa ayna halkaa ka goobayaan bistoolada gargaarka degdega ah. in badan oo ay goobayeen bistoolada waxay ogaadeen inay ka dhiman tahay inay bahalladu soo baxaan 2 saacadood oo keliya. iyagoo ka doodaya habka keliya ay naftooda aga badbaadin lahaayeen bahalladan ayaa waxay si kedis ah ku maqlayaan buuxa bahallada, waxaana halkaa lagu qabsanaya Grit. Davena wuxuu isku dayayaa inuu caawiyo saaxiibkii Grit asagoo bahalka rasaaseynaya, laakiin Grit wuxuu u muuqdaa inuu bahalku saameeyey. waxa uuna qaadanayaa cirbada ka hortagga jeermiska si uu isaga ilaaliyo inuu noqdo bahalladan oo kale. Dave ayaa markale u dhaqaaqaya dhanka bahallada si uu u awdo meelaha ay bahalladu kasoo geli karaan, isagoo macsalaameynaya qoyskiisa. waxa uuna furfurayaa qasabadaha biyaha qaada iyo marinada hawada, isagoo raba inuu khiyaano bahalka oo uu qol gaara keeno. bahalladu waxay si aan kala joogsi lahayn ugu soo aruurayaan xarunta ay ku jiraan Dave iyo qoyskiisa. Taylorna wuxuu isku dayayaa inuu iska caabiyo bahallada oo hooyadii badbaadsado. waxa uuna meesha ku dilayaa dhowr bahal, laakiin nasiib xumo waxaa halkaa ku dhimanaya Ted. hadda waa Grit oo si dhaba u noqday bahalladii maadaama ay saameeyeen mar hore oo ay qaniineen. waxa uuna bistooladii ku fiiqayaa Taylor iyo qoyskiisa isagoo u sheegayo inuu dilayo inta uusan si dhammaystiran u noqon bahallada. si kastaba ha ahaatee ugu dambeyn waxaa kasoo gaaraya Dave isagoo uu badbaadinayo familkiisa. weli xaaladdu ma sahlana, balse waxay u muuqataa inay wax waliba caadi noqon doonaan. waxay si degdeg ah u abaarayaan dhanka caafimaadka iyagoo isku dhafaya milix iyo dhullubo. xayawaanku wuu soo dhowaanayaa ilaa uu albaabka soo jebiyo, laakiin Dave wuxuu maareynayaa inuu si dhib yar u dilo bahalka isagoo ku tuuraya kiimikadii ay gacmahooda ku sameeyeen. hadda wax waliba waa caadi, dunidu waa burbur iyo baaba, laakiin waxaa la dabargooyey bahalladii lurka iyo nasashadaba u diiday Dave iyo qoyskiisa. fadlan intaan hadaad nala soo gaadhay nagu soo biir oo subscribe noo saar janalkeena Bandar Baleen.